magaca maam ay samtam yusuf baa la yiraahdaa walaalo halkeed ka timid waxaan ka yimid Gabiley baan ka yimid macnaha waxaan u jeednaa cunug yar oo xanuunsan inaa wadatid cunugan maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay isagoo dabadu xiran tahay buu dhashay isbitaal boorama la geeyay dabadiiba u fureen haddana dabada waa xirantay kaadidii iyo saxaradiiba way isku darsameen haddana waxaan Kenya haddana leen sanad markaan halkii la joogay baan Kenya haddana la yimid kijaabi baan geeyay sanad baan ku celcelinay marka waxaad ka imaatay Gabiley baan ka yimid walaalo marka hadda waxaad joogtaa magaalada Nairobi baan joogaa waxa dhaqaatiir oo la xiriirta ma jiraan dhakhtar baan la kulmay dhakhtarkiina waxa yiraahdeen waxa inta bishii saddexaad bay waxaan ka qabanaynaa bishii saddexaadna wax way ka qaban waayeen 3 sano kadib bay yiraahdeen wax ka qabanaynaa 3 sanana ma basugi karo Soomaaliyeena kulama noqon karo dagaalay waxba ka socda marka dibtaas ay haysato walaal qaybaha saxarada ee kaadid ayaa xiran way xiran yihiin xiran tahay okay marka maxaa ummadda Soomaaliyeed ka codsanay in la caawiyo walaal ka codsanaya ilmaha dhibaataysan oo iska dhibaataysan oo dhibaataysan waan ku dhibaataysanay in la caawiyo raba marka caawinaad ahaan macnaha maqlaata dhaqaatiirta inay operation ku sameyn karaan cunugan yar halkan Nairobi ma waxba lagu ma sameyn karayo waxba lagu ma qabanaya leeyahay sano kadib bismillaahir rahmaanir rahiim saa u jeedin macnaha maamadan samsam waxay dhashay wiilkan yar oo jira 2 sano waxay ka imaatay macnaha Soomaaliland magaalada la dhahay Gabiley wiilkan yar u jeedin macnaha kaadidana way xiran tahay saxaradana way xiran tahay ma soo marayso sida sawirka ugu jeedin waxa macnaha dibadda taala macnaha kaad haystiisa meeshaas ay ka soo wada baxaan macnaha saxaradii iyo kaadidii dhaqaatiir dhowr meeshan jooga ayaa la xiriirtay marka xataa ma awood macnaha isbitaal ku tagto marka ummadda Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan macnaha waxaan ka codsanaynaa sidii gabadhan iyo caruurta cunugan yar oo saqiirka ay u caawin lahaayeen ayaan ka codsanaynaa waa u jeedin cunuga xanuun baa haye ma aamusayo ay kaadidii iyo saxaradii ka xiran yihiin markaas qof walba sida ugu dhaqsaha badan waxaan ka baryaynaa inuu macnaha la soo xiriiro waxaana qofkii inuu caawiyo raba kala soo xiriiri karaa taleefanka shaashada ku qoran taleefankeeda marka qof walba wuxuu awooda ayada toos ugu soo diro macnaha taleefankeeda si uu la soo xiriiro marka wabillahi tawfiiq insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan macnaha caawisiin wabillahi tawfiiq